assalaamu calaykum ku soo dhowaada qisada ramadaanka. waxaa jiray laba wiil oo saaxiibo ah oo nafta u dhaxayso. waxay wada galeen safar, ayaga oo saxara sii marayo ayaa waxaa dhex martay dood. mid ka mida labadoodii ayaa wuxuu dharbaaxay saaxiibkiis. midkii la dharbaaxay ayaa wuxuu ku qoray carrada korkeeda, maanta waxaa wejigayga dharbaaxay ruuxii dadka igu qaalisnaa. kadib safarkoodii ayay sii wateen, ayaga oo dhex sii maraya ayaa waxay fadhiisteen meel dhiiqa ah. midkii la dharbaaxay ayaa wuxuu ku dhacay dhiiqadii. waxaa markaas soo badbaadiyey saaxiibkiis. kadib markii uu soo badbaadiyey ayuu wuxuu ku qoray dhagax korkiisa, maanta waxaa i badbaadiyey ruuxii dadka igu qaalisnaa. kadib wiilkii saaxiibkiis ahaa ayaa wuxuu ku yidhi, markii aan ku dharbaaxay waxaad ku qortay carrada korkeeda, markii aan ku badbaadiyena waxaad ku qortay dhagax korkiisa, maxaad ka wadaa arrintaas? saaxiibkiis ayaa u jawaabay, wuxuu ku yidhi, markii uu qofna xumeeyo waxaa habboon inaan ku qorno carrada korkeeda si ay dabayshu u masaxdo oo ay u baaba'do. marka uu ruux wanaag noo sameeyana waxaa waajib ah inaan ku qorno dhagax korkiisa, maxaa yeele dhagaxa korkiisa ma jirto dabeel baabi'in karto ama masixi karto. qisadayna halkaa ayay nooga eg tahay. qisada faa'iida aan ka qaadanayno ayaa waxay tahay in aan mar weliba isa saamaxno, si kastoo aan isku khilaafno ama dhibaato aynoo dhex marto. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid. فاقبل صومنا وأعده عاما بعد عام. يا رب صل على الذي فاقت محامده الأنام، فاقت محامده الأنام.